السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaanu baranaa sida flash loo format gareeyo markaaynu sameynayno bootinka inagoo isticmaalana si aynu u format gareyno flashta cmd. hadda cmd ga ayaynu soo fureynaa administrator ayaynu soo furnay waa kan disk part ayaynu leenahay marka disk part dabeed no list ayaynu leenahay marka list disk no list gareeyay hadda flashti waa wanka waayo gb ga ayaa ka yar ka hard disk ga soo marka waxaanu dooraynaa wanka select disk 1 ayaynu leenahay noo dooray waxa leeyahay disk 1 is now selected disk noo dooray dabeed clean baynu nadiif disk ga noo nadiifiyay marka partition baynu sameeynaa create partition primary enter baynu leenahay uu sameeyay partition ka aynu sameeynay baynu haddana dooraynaa select partition 1 enter baynu leenahay marka waxa uu noo dooray waxaan leenahay activate garee active gareeyay format baynu leenahay marka format fs equal ntfs quick markasta haddaynu quick odhan weyno waqti badan bay naga qaadanaysaa waayo wuxuu raadinayaa boortiyo ka xun flashta si uu u xalliyo marka quick baynu odhanaa mar walba hadda assign baynu leenahay si uu xaraf ugu sameeyo dabadeed exit waa uu inoo dhameeyo shaqadeennii marka hadda baynu hubinaynaa inay flashtaasi si fiican inoogu format gareysantay waa kan uu inoo dhameeyey removable disk G buu ka dhigay oo kaba maran tahay cashirka ku xiga waxaanu ku qaadan doonaa si aynu flashta aynu format gareynay uga dhigi lahayn mid bootable ah oo lagu soo kicin karo kombiyuutarada kuwa ciladaysan oo Windows ka laga bedelayo si aynu ugu bedelno Windows computer waxay loobin inaad subscribe tirahdaan like na raacisaan insha Allah waa inoo iyo kulanti dambe insha Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.